cashada caawa waxaa soo abaabulay wasaaradda arrimaha dibadda iyada oo lagu soo dhaweeyay oo lagu karaameeyay dadkii madaxdii dalalka badan ka yimid oo ka soo qayb galay shirkii iskaashiga Soomaaliya iyo dalalka taageera Somali Partnership Forum oo sanad kasta lagu qabto 4 mar la qabtay maanta iyo shalayna lagu qabtay xamar kaasoo ra'iisul wasaaruhu maanta uu shir gudoominayay shalayna ra'iisul wasaare ku-xigeenku wufuud badan oo 35 dal ka socda iyo 7 hay'adood ayaa ka soo qayb galay shirkaas marka qaarkood ayaa maanta baxay qaarna way sii joogeen bari iyo wixii ka dambeeyay baxayaan marka wasaaradda arrimaha dibadda waxay garatay inay dadkii aan bixin inay casho u samayso oo ay tusto Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed siday u yihiin dad soo dhaweynta ku fiican dad ixtiraama dadka ay saaxiibada yihiin waxaa ka soo qayb galay wufuud badan waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda oo dalka Masar Kenya maxaa la yiraahdaa Turkiga waxaa kaloo joogay diblomaasiyiin badan oo ambassador dhowr ah waxaa sidoo kale joogay SRSG-ga iyo wakiilka xogayaha guud ee Jamciyadda Qurumaha ka dhaxaysa iyo wakiilka AU-da dadkaas oo dhan ayaa joogay iyo madax kaleeto iyo wasiirro Soomaaliyeed iyo dad kale Soomaaliyeed oo u badnaa dadkii kulankii ama shirweynihii labada bari socday ka shaqeynaya ku mashquulsanaa waxay ahayd habeen farxad iyo dadka aanu baraynay dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed martigelintooda iyo soo dhaweyntooda waata shir noocan oo kale in Soomaaliya muqdisho lagu qabto maxay u leedahay shacabka Soomaaliyeed dowladda shacabka horta waa isku mid oo dowladnimadu waa dowladdu aad maqlaysid waa dadka iyo xukuumadda iyo dhulkooda oo iswata marka wax weyn bay u tahay Soomaaliya waxa u baxday in dal nabadgelyo la oo tacbaan tabar daran uu yahay marka dadka Soomaaliyeed lama yaqaano waxa loo inta badan laga aaminsan inay yihiin dad dhib badan marka shir saan oo kale taa lagu qabto xamar iyo Soomaaliya gudaheeda oo sidii maanta sida ra'iisul wasaaruhu sheegay loo diyaariyo oo sidii quruxda badneyd oo loo sameeyo kaleeto labadii bari oo la soo dhaafay waxay dadka tusaysaa in Soomaaliya tahay meel nabada inkastoo ay dad dhib jecel jiraan iyo inay tahay meel dadkeedu ay yihiin dad wanaagsan inaynu dunida la mid nahay marka wax weyn bay noo tahay waa tahay labada sano ugu dambeysay ama ayraada sanada ugu dambeeyay waxaa soo tarayay dalalka safiir u soo magacaabay Soomaaliya bal ka war iyadana maanta war sheegay war la helayo safiiradda ama safaaradda Mareykanka isla loo furay muddada maanta waa safaaradda muddada baday joogtay bayaan safiirkooda halkaan degan yahay marka safaarado badan baa degan koob badan inay yimaadaan bay rabaan waxay muujinaysaa diilada iyo rajada dalku leeyahay in umadihii adduunka joogay ku soo dhiiranayaan wufuud badan baa bariyahan imaanaysa kuwa badan oo soo socdaan oo heer sare ah marka waxay muujinaysaa oo adkeynaysaa nabadda Soomaaliya oo soo taraysay oo soo kordhay soo badanaysa